بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم inaad is-aaminto adigu waxay keeni kartaa in dadka kale ay saaxiibo wanaagsan kula noqdaan sidoo kale inaad dadka kale aamintaa waxay ku xaqiijinaysaa inaad hesho waxyaabaha aad u baahan tahay aaminaadu waa caafimaad qabka xiriir kasta oo dadka kala dhaxeeya waxa ka mid ah in xiriirka naftaada kala dhaxeeya uu yahay mid xoogan oo bad qaba inaad adigu is-aamintaa waxay xoojinaysaa kalsoonidaada waxayna kuu fududaynaysaa inaad go'aamo gaadho waxaana hoos u dhacaya heerka walwalka iyo walaacaaga warka wanaagsani wuxuu yahay xitaa haddii naftaada aanad aaminsanayn hadda waxaad u baahan tahay dadaal kooban si aad mar kale u xoojiso ma jiro wax ka muhiimsan inaad naftaada aaminto is-aaminaad darradu waxay timaadaa marka qalad yari kaa dhaco ee aad bilowdo inaad is-eedayso waxay noqonaysaa xaalad adag marka aad aamini weydo naftaada sababtoo ah waxaad ka baqaysaa inaad go'aan gaadho ama qalad kaa dhaco haddaba caawa waxaynu ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan sidaad aaminaadda naftaada u kordhin lahayd ugana dhigi lahayd mid xooggan waa mar kale iyo ayaan jaamac nuuxayaan dhalad ku soo dhawaada qodobka koowaad marnaba ha iska dhigin qof aanad ahayn ee adigu noqo qofka aad tahay haddii aad ka baqayso sida dadka kale kuu arkaan ama hadalka ay ku odhan doonaan haddaba way kugu adkaanaysaa inaad noqoto shakhsiyadda naftaadu tahay waxaad noqonaysaa qof iska dhigaya qof kale marka aad dadka kale la joogto waxaana kaa muuqanaysaa inaad tahay qof aan isku kalsoonayn xitaa mararka qaar dadka kale way ku dareemi karaan adiga haddaba waa inaad naftaada xasuusiso inaad adigu isku filan tahay marka aad dadka kale la joogto oo aanad isdareensiin inaad iyaga wax uga baahan tahay waxaad sidoo kale bilowdaa inaad ka ag dhowaato dadka aad agtooda kalsoonida ku dareento sida asxaabtaada qaar ka mid ah ama qoyskaaga waxaad samayn kartaa inaad agjoogooda badiso dadkaas inta ay kalsooni darradu kaa hadhayso ee aad noqonayso qof si mug leh isugu kalsoon marka ay dadka kale ku dareemaan inaad tahay qof isku kalsoon oo is-aaminsan waxay bilaabayaan inay ku tixgeliyaan taasina waxay kaa caawinaysaa inaanad iska dhigin waxaanad ahayn qodobka labaad u naxariiso naftaada waxa macquul ah inaad marar badan maqashay inaad naftaada u jeclaato si shuruud la'aan ahi ay kaa dhigayso qof aan la dheelsan karin oo dadku qadarin badan u hayaan sidaas darteed inaad naftaada jeclaato mar kastana aad ka hormariso wax walba waxay meesha ka saaraysaa aragtiyaha khaldan ee aad iska aaminsan tahay adigu sida waa dabeecad xun tahay aqoon fiican ma lihid shaqadaas ma qaban kartid heerkaas ma gaadhi kartid oo wuu kaa sarreeyaa iyo wixii la mid ah si dhow u eeg guuxa aan la maqlin ee naftaadu isu sheegayso iyo fikradaha yaryar ee aan la malayn karin marka aad naftaada u jeclaato si shuruud la'aana waxaad isu aaminaysaa si shuruud la'aana taasina waxay dhisaysaa kalsoonida naftaada qodobka saddexaad xooji oo kor u qaad waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay sidaan wada ognahay qof kastaa waxbuu ku fiican yahay waxna wuu ku xun yahay waa hubaal inaad hayso fikrado ku saabsan waxaad ku wanaagsan tahay aaminaadda naftaada micnaheedu waxa weeye inaad isku daydo wax kasta oo suurtagal ah adigoo aan naftaada ku eedaynayn marka ay fashilmaan ama uu khalad dhaco si kasta haddii aad u raadinayso qaabaad ku xoojiso kalsoonidaada waxa taas kaa caawinaya kaliya inaad ogaato arrimaha aad ku wanaagsan tahay kadibna aad sii horumariso iyaga haddii aanad hubin waxa aad ku fiican tahay weydii dadka kuu dhow ee aadka kuu yaqaana adiga kadibna wakhti badan ku qaado samaynta arrimahaas ogolow waxa aad ku fiican tahay kadibna sii xooji waana inaad garataa waxyaabaha aad ku liidato qodobka afraad naftaada wakhti la qaado marka aanad naftaada aaminsanayn waxa suurtagal ah inaanad ku farxin inaad naftaada wakhti la qaadato waxaana dhici karta inaanad waxaan jirin isku mashquuliso ama aad ka fakerto waxyaabo yaryar oo aan adigaba ku dhaafsiisnayn dabeecadahaas iska beddel gebi ahaanba waxaana muhiima inaad si hoose u eegto naftaada oo aad ka fikirto waxa ay dareemayso
sidoo kale waxaad samayn kartaa jimicsiga maskaxda waayo maskaxdu waxay u baahan tahay jimicsi naftaada la fadhiiso oo meel degan oo aan buuq lahayn oo laydhi ka dhacayso kula qaado waqti kooban oo ah 10 ilaa 15 daqiiqo maalintiiba si dhow ula soco sida aad u neefsanayso si deganna u dhagayso haddii ay kaa soo dhex baxayaan eedayn ama dhaleecayn naftaada ka dhan ah inaad waqti la qaadato naftaadu waxay kordhinaysaa kalsoonidaada sidoo kalena waxay ku siinaysaa awood iyo tamar positive ah qodobka shanaad waa inaad yeelataa go'aan qaadasho adag is-aaminaad la'aan nafta ah ayaa jirta marka aynu su'aal gelinno ficilada aynu samaynayno ama go'aanada aynu qaadanayno waqtiyada qaar xitaa marmarka qaar waxaa dhici karta inaad su'aal geliso qofka aad tahay taasina dhaawac ayay kuu geysan kartaa adiga kalsoonidaada naftana waxaad ku xoojin kartaa inaad joojiso inaad su'aal geliso go'aanadaada haddii aad go'aan gaadho ku adkayso go'aankaaga oo yaanu noqon mid aad dib uga fikirto oo aad marar badan rogrogto walaac badanna ku geliya kaliya markaad go'aan qaadanayso naftaada la tasho la fadhiiso kadibna qaado adigoo degan oon wax xaaladahay kugu furnayn haba yaraatee sida ugu wanaagsanina waa inaad khaladaadkaaga wax ka barato oo iyagu cashar kuu noqdaan ugu dambayntiina la wadaag qodobka ku anfacay adiga ee aad ka faa'iiday mawduuceennan caawa aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum